نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين. قدر عليه هذا وقت أدو هذا الكل بطوة هذا الكل بطوة بديه كلمة ير waxaan jeclaan lahaa inaad dhegaysataan kelimo yar oo kooban oo ku saabsan xajka xajkan sanadan ma sha Allah ilaahay ninkuu maaragtay daalika fadlullahi yu'tii man yashaa wallahu dhul fadli al-'aziim ilaahay ninkii maxaa ku dhahday khayr qaba dad buu ilaahay u doortay sanadan xajkan oo kale ma soo marin aad buu fiicnaa marka hore diyaaradda daala abariyaan soo jeedinayaa waxoogaa yar oo gadaal ka dhacayna maadaama ay dadka Soomaalida gurayso oo diyaaradda koobaad oo hadda Soomaaliya leedahay tahay inay dadaalaan weeye diyaaradda idaarada abariyaan soo jeedinayaa marar aan xajiyo marna jaamica islaamiya in maaragtay martiqaaday marna boqortooyada qola kamid ah martiqaaday waan marna jidda ku tagnay jidda ka baxno Madiina aadanay laakiin diyaaradan intay naga qaaday Soomaaliya gudaheeda naga garan waa ka raacnay dadka badankiisana waxa soo guraysa xamar toos Madiina noo geysa caasimadda islaamka aad iyo aad waa bogaadinay annagoo dad qabna annagoo jidbaysan baa ka tagnay Madiina caasimaddii islaamka oo reysay dadkii soo dhaweeyay nabigeena sallallahu alayhi wasallam aad iyo aad xajkaas dadku waa yaraayeen wasaaradda awqaafta وإذا قلتم فاعدلوا وأنا ما ركتي عدلي بأنه سمين وحين قصور ربطي مزدلفة وحين كنت من برتنكيغ هذه وبقاديني صورة واسعة يهردني ويسكفي عنه كليا ماشا وحكي مادين من قدهيغا وحلقوا مكريو تبدأ مزدلفة dibaddaas waxa lagu karin jiray oo haween Soomaaliyeed oo Makka iyo Jiddiya ka yimaadaba inta ka gadanaynay la baasabi waxayagaas iska biyaysan laakiin hadii la soo gareemina dawlad uu weey wixii meesha loo ogol yahay meesha aan soo galay ninkii la heshiiyay sawirku uu soo gaadho Suudaaniya ba wax dhacay ma naqaan يا عندي dadka xujaajta waliba cadad si sameeyo haweenka la siiyeen haweenka marada in laga dajiyeen waa horeyn ragii inta waan weynay laakiin waxaynu ma weerinayeen way soo socotaa way maraysaa iyada lafteedu waa nafaqo dilay cuntadii baa soo socota waqtiga la maaragtay waqtiga waxa ku dhamaysan cunta soo socota qaladkaasina waa jiray laakiin sida kale waa la dadaalay halka waxa ka muuqday dawladley iyo maamuley oo dawladda iyo wasaaradda federaalka aan ku baraarujinayno aan ku ceebeynaynin in la qaladaadkii dhacay maan sanadan oo dibadda u soo bixin la joojiyo in xajka suuqa lagu kala gato waxa weeye hadalkaas arintaas waa ceeb ودولدي وحوريست كنلك مجلس الأعلى كنلك يعني إثيوبيا المسلمين تكون نور تردي لوجو يوجو يعني ما كان معتي ويجوجين حلق فسوق لو قتي مجرين كينيا أيضا على مدحين جيبوتي على مدحين أسعارته إلا هو أسعار كلول كيس أفريقيا شامكون لو بقول يصدم به كينيا أفركون هي برد إثيوبيا وحي هيد مجلس الأعلى صدحكون هي برد جيبوتي أفركون هي برد ميلهاس
Uganda baan raadiyey waan waayey way noo yimaadeen laakiin waan iloobay inaan weydiiyo hal qof oo suuqa lagu gatay ma lahayn wara kasta markay waqtigu dhamaado qof ku dambeeyo la qor waa la joojinayay inaga suuqa lagu gaday arrintaa inaga waan sameeyay wayna jirtay laakiin say sanadan dibadda ugu soo baxday uma soo bixin وأرن لغا نحوي فعلين وحكالو دعي إن بطاقته لغو قلي مخيمك habeennimadii sideedaad lagu kala gadanayay hoteelada maxaan idhaahdaa in maka lagu gadayo 500 la siinayay arinta waxa ka yimid way yaraayeen oo sidii hore ma ahayn in dadkii soo bixiyay 5,000 iyo googo ah qaarkood 6,000 ay soo bixiyeen way yaraayeen laakiin inay dibadda seexdaan oo dibadda fadhiyaan iyadoo 40 iyo dhowr ay kuleelku yahay oo dhulku naar yahay arrintaasina waa qaladaad dhacay waxa ku baraarujinayna wasaaradda arrinta noocaas oo kala ah man kaana yu'minu billahi wal yawmil aakhir dadka la iska ilaaliyo dadka xoolooga la iska ilaaliyo war xujaajta ma lagu guban xujaajta khatar baa ka socota waxa way xujaajtaas arrinta in la joojiyo oo dadka xujaajta iyaga mukhayamaad kale dadka reer Makka degan iyo dadka reer Jidda degan iyo kuwa Riyaadka imanayana fariin baan u fariinaa fariintaas waa maxay mukhayamaadka hagelina mukhayamaadka xujaajta leh mukhayamaadka xujaajta lacag ka bixiyay wariyahay ka baba cuntada meesha ku cuntaan iyo meesha seexanaysaan iyo biyaha ku cabisaan xujaajta loogu talagalay lacagta badan laga qaaday oo dibadda ka yimid oo soo rafaaday war waxyaalaha cudurrada laga qaadaa turkiina seexda annagu waan jaamacada dhigan jirnay shaarican seexan jirnay ayaan oo kala dawlad baa haysatay thawra haysatay thawradu waxa weeye dhinaca wanaagga waa maxay maamul dawlad cid istilaysa cid sidaba ordaysa ma jirin dibteeday lahayd laakiin haddana manaaficdeeda badnaa wadanka Soomaaliya way ilaalinaysay badda laba soo marayn hawadana lama marayn cid soo gali kartana ma jirin hatta annagu markaa dibadda u baxaynay waxaan ku bacnay tuugo anagii baa la ilaalinayo la noo diiday dibadana waa baxno wadanka dib socod inta lagu arkay soo dibadda u ordaya dawladdu qabato dawladdaasi khayraad ma nafahansaneen culba laahin laakiin hadda faahnayo aqliga waaga iyo aqligan isku mid ma aha khulaasada hadaan inii soo koobo xajka sanadan xajii fadli badan buu ahaa anagoo Madiina joogna baan waxa ku yiri xiyaasta qaarkood war jimca iyo Arafa isa saaran ilaahay wax barayna ilaahay noo kulmiyo sidii baa dhacday jimcihii iyo wax isku dhacay Arafo ba israacay waa xajkii nabiga sallallahu alayhi wasallam waa maalintii sharcigeena taam yeelay waa maalintii ilaahay subhanahu wa ta'ala wa ni'mada inoo taam yeelay oo wax diin dambe oo soo dagayay iyo aayad dambe oo soo dagaysay la joojiyay maalintaas maalin aad u ajir badan bay ahayd wajaajtu xajka hadan inaga warramo murtiba laga leeyahay murtida laga leeyahay waa maxay dadka taga inay soo noqdaan iyagoo muwaxidiina iyagoo shirki iyo riya iyo istustus iyo ilaahay qoyrkii ka qoostay macnaha sida xadiistu sheegtay ayadaha quraanka laga fahansan yahay dadka xajka tagay boqortooyada ilaahay bay marti u yihiin ilaahay bay martiyeen tanta laga leeyahay marka weynaa ayaamo kooban ayaamo macduudaad laakiin dahaba bana soo maray say u eegayd yaqaabka wuxuu dhacayeenna uma eegayn in lagu qadi xun in laga helaa suurowda midba ilaahay meesha wuxuu ka siiyo ayaamahaas meesha tagnay dadku waa daaleen oo dadku iskooyeen oo dadka qaar baa gaajooday oo ismarid hadayna jirin oo dhulku faalan iyo wanaagsan yahay dhibba hadana jirtay intay dooni halahaato dhibtaa ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo loo galay jihaad bay sidoo nabigu ku yiri Aisha alaykum jihaadun la qitaala fihi xajkaas horeyna waan uga sheekeeyay mar horaan ka sheekeeyay sideed nin oo maleeyay mutashaabba مسوا السودان وهو يدو تريحيا يمد مرحرة وي وكشكي جرايد كل ما لو سوق السعودية تذكر لما هو بريء 20 سنة لعقته ورسيني حجيان
arrintaa bay nagu jirtaa 20 sana bay waxay urursanayeen sideed walaalaa weeye mid baa ugu weyn iyo waxay urursanayeen xajka inay aadaan hooyadood markay keeneen oo 9 ku noqotayna waxay isku qabteen Carafo gaari ma haysan ana riixi carabadii lagu riixay gaarigan meel dhahna carabadii bay isku qabsadeen nimanka jaraa'idku dhammaan dibadda soo dhigay marka xajku waa aaya min aayatillah ilaahi subhanahu wa ta'ala yawma Arafa wa maalinta kaliya oo sharcigu sheegay ilaahi subhanahu wa ta'ala nuzul yaliqu bidatihi ila samaa'i dunya tarina wahta inuu ilaahi u soo daadagayo nuzul yaliqu bidatihi habeenka isagu waa joogto laakiin maalin qorraxay soo baxdo عشية عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يدنو إلهي وأسود وانيا وحنو سود دقيا السماء الدنيا حجاجت مرك إلهي بين لقل ماء نبي إلهي وحكسيب وخسوقاتي دعاء وحوية مستجاب وحي خرج شيء كجبحينا وحي أنا تجربية وحكم مذا صدقكم هذا كجبح هذا ما لبكم أما شنكم مركزون نقطة تذهلي دليل وحوة قبل كان ninkan xajiyay oo iska faqiira oo dhalinyara baan lacag maxad haystaa markuu la xajiyay 3 baan haystaa 3daasan xajka ku tagay soo noqday waa wareystay markay bila ka soo sheekh markii aan soo noqdayba ilaahay waa isiiyay 3daydii ku waa helay soo garmaysid marka xadiiskuna uu sheegayo nabiga sallallahu alayhi wasallam yani xajku yanfi al-faqra wa ad-dunub صبرنا وبابيا ذنوبتنا إلهي تذكر وعكا ميدا مركا النبي صلى الله عليه وسلم وحيري الحج المبرور ليس له جزاء أبا القد معها أبا القد نقول مجر إلا إن أتينا ذلك الشماعي ده إلهي لذكر النسان انكسر إلهي لذكر النسان وهذا ديمان الإنسان إنتين هذا لك وكاله الرئيسان سان وكاله الرئيسان والله ديماني نين حرماي marka ilaahay maxaad qoro kulmaysaan beedkiisa adoo boqodaartii uu ka soo baxay baan jiray ayar iga kacbada anti ku fiiriyay marka sababtii sabax qof afir waxaan idhi ilaahay ka qadin ilaahay soo celibaa عبد مركبه هوي لقام مارمو والله بالله أيام في أميش أجوكم صباحا إلهي نواف جونك عبد كنت كنو صلاة كمعان مارك ننقرف عننا إيش آخره لبن الباب فينا لبا الشيخ لبدا الشيخ تانا الوضياش لما قدايو ما شاء الله معنا مع سرك معنا إنه قد وحنا صونا قضى وحا جدك وحجرنا روح ظن دي دنبي كلها هايو دي وحلا عنا لو روح ذو يكبحي ماشى وقاعد يوبحي لمشى الاله ده لكن حجك هي عبادته والروح ظالم بساعه marka xajki waxa weeye sacuudigu wuxuu soo rogay xamalaadkii uu joojiyo inaga inuu masuuroobayso xamalaadka aan wax la soo day Carafaat xamaladaas la socday waa koox waa culimo waa dadaalay dadkay wadeen 150 bay wadeen oo si fiican bay u maamuleen hal qof kama lumin qofkii maal qof baxmay haweeney ba gaari jugeeyay markii wax loo orday isbitaal waa ilaaliyeen afarta qoonay ka galeen ma sha Allah ilo duceeyo oo barbar joogsado la ayido bay horta mutaan Carafaat halka kooba weey waxa kale oo la socday garaad xaj umra isaguna garaadkaasi xujaajtu waday uu dadaalay
soo ma arkaysid dhammaantoodna markaas u duubto dhibta iyo rafaadka iyo culayska iyo soo jeedka intaba maaragtay waxa weeye way maaragtay way u dadaaleen oo way soo jeedeen oo way qaadiroodeen oo saasay ahaayeen xajkan marka xaj wuxuu ahaa aad iyo aad mubaarak u ah waa xaj wanaagsan waxaa laynaga rabaa marka inaad u shaqaysataan cumrada inaad aadaan haddaad weydaan xajka cumrada aada xamrada u yar xajkii waa qaaliyoobay wada maqlaysan hadda warkaygii meel kasta waa meesha ugu qaalisanina waa Ameerika 12,000 iyo jarjar weeye bay kaga soo xajiyeen dhallinyaraan arkay oo ka soo halkaa ka timid xamalaadkiina waa la joojiyey oo hadda Ingiriiska Soomaalida dibadda ka soo xajiyeysay ma iman sanadan wax yar baa ka yimid inta xajiyeysa waa Afrika oo Asia dadka duwal kale oo idaarada leh sida Indonesia oo kale waxa la sameeyay xaajiga airport kolku soo galo waxa weeye boorsadiisii iyo sariirta u seexani iyo wuxuu cunayo raqam baa la siinayaa suuq wuxuu ka soo degayaa airportka arki maayo baashi la yiraahdo boorsadiisii sariirtii oo saaran uu tagayaa laakiin dadka dawladda leh safiirka dhabta leh inaga lafteena safaaradda mise qunsuliyada ay ahaayeen waa dadaaleen laakiin waxba gacanta ugu ma jirin waxa gacanta arinta ugu jirta wasaaradda maamulaysa wasaaradda mas'uulka ah wixii qalad ee dhacay wasaaradda waan aniga cadli baan u sameeyay wanaag bay sameeyay waxay naga soo rartay Musdalifa minayna keentay waa ku wanaagsan yihiin waxaan wali mas'uulo warigaynaan helin intii dawladdu ay burburtay waagi dawladdu ay joogtay waa gaar bay ahayn guriyuhuna mukhayamaadkuna way fiicnaayeen cilooyinka jirana waa sheegay wasiirka cusub waxaan u rajaynaynaa qaladaadkaas inay soo noqnoqonin in la helo maamul in dawladnimo la kaso ayaa loo baahan yahay bishana tabiratana waa muharram waa bilahi ilaahi subhanahu wa ta'ala u diyaariyo xujaajta wala isdhici jiray waa la isleeyin jiray dilqacdana waxa loogu talagalay marka nimankii carabta ay shuhaasha bilaha xurmada meel kaga ma dhici jirin inagu bilaha xurmada ma naqaan Soomaaliya waa isleeyna bisha dilqacda in la tago oo la taabin xagee u socotaan xarabkii may taaban jirin la socon jireen bisha dilxijana waxa joogi jireen xarabka bisha muharram tan bilatayna wala noqon jiray sida darteed bulcadoodii waxay yiraahdeen aan sameeyno muharramna dibaan u ridno safarna xaqana u soo durkino oo maaragtay badalo si aan u dhacno dadka say dadka ugu helaan furso bishan marka waa muharram bilaha afarta kamid ah muharramka tobankeega waxa la naga rabaa inaan soonno oo maalintii ilaahay uu halaagay atqal ala maaragtay daalimiin ninkii ugu qooqabadnaa fircoon waxa la hadligay bishan tobankeega ilaahay marka dadkii muuminiinta oo Muuse iyo Haaruun ay madaxa ka ayaan calayhi wasalaam maalintii ilaahay nabadgeliyay yuhuudda soo bijirtay yuhuuddu waa qaran la socda waa qaran kanada sacuudiga lagu dhaxdiisa lagu arkay soo ma arkaysid meesha ku dhaxdooda ay soo wareegaya waxa weeye waad aragteen baan malay ninka wareegaya qolka hore waxaan u haystay ilaa sacuudigu ka hadlo oo ninkii la soo qabtay soo fududeeyay waxaan u haystay waxaan inay tahay wax la suuq keenay yuhuuddu waa niman qaran weeye waa niman dadaalay weeye gaalnimadooda ha fiirinin laakiin waa qaran waa dawlad bisan waa dawlad hormartay adduunka ku hormartay aakhira laakiin wax ka horeeyay jirin nimankaas yuhuudda soomay nabiga ugu tagay maxaa u soomaysaan yawma najallahu Muusa wa bani Israa'iila wa maalintii Muusa alayhi salaam iyo reer bani Israa'iil nabadgeliyay nabigu wuxuu yiri nahnu awlaa minkum بموسى أنا غير نيجدو نجا قرابة إذا هو كجال وده موسى دين تيسيه أنا جا صومنا ما نتروح إنه بعد حس كاسنا وصوم بحجر معه بحني وحسوسنا أمتي أول الله عين وإلهي نبتقلي سبحانه وتعالى مركا إلهي سبحانه وتعالى وحبرينا أبارت من الخرقاء أبار باجرت اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اسقنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا
من الظالمين إلى رب نصير إلى مال كان نجا بربرني إلى وبارتنا وخرقات إلى عرضها نجا دمي إلى قولوا تودا الصومالي ذا يا مسلمين ترى قولوا تودا إلى برعاد السمري صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه